Shirweynaha beesha xawaadle oo muddo 4 maalin ah Beledweyne ka socday ayaa maanta la soo gabagabeeyay nabadoono odayaal iyo waxgarad beesha xawaadle ah oo maanta warbaahinta kula hadlay Beledweyne ayaana si cad uga soo horjeestay heshiiskii dhexmaray dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo maamulka Hirshabelle ee ku aadanaa dhul beereed ku yaala degmada Feerfeer ee gobolka Hiiraanka oo labada maamul ay wada gaareen 26 bishan Maarso. Nabadoonnada odayaasha iyo waxgaradka beesha xawaadle ee shirka gabagabadiisa warbaahinta la hadlay waxay carabka ay ku dhufteen in gabi ahaan heshiiska uu yahay mid sharciga baalmarsan waxayna ugu baaqeen dowladda dhexe ee Soomaaliya in si la mid ah sida ay Kenya uga ilaaliso dhulka iyo badda Soomaaliya Hirshabelle iyo dowladda Itoobiya ay uga ilaaliso dhulka gobolka Hiiraan waa sida ay hadalka u dhigeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha xawaadle. waxaan ka hadlaynaa shirkan jiraad u qabanay waxyaabana danqiyay oo ay ka mid yihiin dowladda Itoobiya kililka shanaad ee soonka Soomaalida niman ka yimid ee 15 kiiloomitir oo Soomaaliya dhexdeeda soo istaagay oo kula kulmay nin sheeganayo inuu yahay gudoomiye madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle taasoo reer Hiiraan ay aqoonsanayn taas daraaddeed waxaan ka jawaabaynaa dhulkeenna nafteena iyo maalkeenna beeraheenna iyo xoolaheenna xuduudaheenna iyo danaheenna dad aan shuqul ku ahayn kama jawaabi karaan waxna kama qaban karaan waxaanu sheegaynaa way isku dayeen annagoo hurudno inayna kor maraan oo muxuu ahaa ka hadlaan waxaan munaasib ayna u lahayn oo sharci islaami gaala u saldhigayay ninka markuu mas-uul sheeganayo waa inuu ku taagan yahay qodobada sharciga dawliga iyo sharciga islaamka waa inuu ku taagan yahay ninaan danuun lahayn u yimid oo ka jawaabayo oo dhahaya dhulkan waan xiray anigaa xiray 3 biloodaan xiray muxuu xirayaa muxuu ka tegayaa waa meel ciduu sabaynaya kan la socda ee dhahaya madaxweyne ku xigeen Hirshabelle aan ahay hadduu yahay madaxweyne Hirshabelle maxaa keenay nin hoggaan nabadgelyo ah oon ku tiita lahayn oon la fac ahayn inuu meel la istaago oo dalkiisii soohin u dhigo siraaho qaado warkaas taa waa qaladaan leeyahay intaa kadib haddaan nahay odayaasha deegaanka gobolka Hiiraan kuwa deegaanka Feerfeer Soomaaliya culummo diinka waxgaradka aqoon-yahanka waxaan ka jawaabaynaa inaanan uga haybaysanaynin ninaanan shuqul ku lahayn dhulkeenna ma uga haybaysanaynin waxaan rabaa in aan ka hadlo arrin 24 bishii Maarso ka dhacday degmada Feerfeer labada dhinac degmada ka ah arrin ka dhacday aan rabaa inaan ka hadlo niman kililka shanaad ka yimid iyo niman isku magacaabay Hirshabelle ayaan ka soconaa ee heshiiskooda gaareen arrintaas rabnaa inaan annaga oo ah beesha xawaadle inaan ka hadalno waxa nooga aadan iyo munaasabkan waxa ay nala tahay waxaan leeyahay arrinta Feerfeer in badan ay taagneed dhibaatadu ka taagneed mashaakilkeedu taagnaay dhiig badan ku daatay ma rabna dhiig dambeeyna ku daato maantane waxa la horseeda oo la wado waa wax in dhiig dambe haddana dib ugu daata ah waxaana sabab u ah ninka ka yimid jigjiga ee yimid Soomaaliya degmada Feerfeer Soomaaliya yimid ee Soomaaliya qad cagaaran ka sameynayay calan Itoobiya ka taagay Soomaaliya dhexdeeda oo abaalay ka taagan yahay oo dareerta uu ka taagan yahay calan Itoobiya 15 kiiloomitir oo gudaha Soomaaliyana ah arrintaas aan daba joognaa meeshaas dhiig badan horay ugu daatay dhibaato fara badan ka dhacday haddana ma doonayno inuu dhiig labaad ka daato ninka ka yimid jigjigo ee 130 wiil horay ugu dilay meesha
buugana ay ugu qoran tahay u diiwaan gashan tahay ee maanta haddana yiri Soomaaliya dhexdeeda qad cagaaran ka sameeyna waa nin doona inuu maxay yahay dib ummadda Soomaaliyeed u baabi'iyo dhibaato iyo cawaaqib xun inuu dhaxalsiyo rabo way ninkaas waxaan leenahay cid kasta oo qusaysa arintaas ha aragtaan leenahay horta nama matalo Itoobiya ma nihin Soomaaliya nahay gobol nooma aha degmo nooma aha maamul ahaan nama xukumo ee beerahan iyo gurigeena inta dhex yimid qad cagaaran dhigay ninkaasi aan nabadgeliyo dhiig horow daadiyay maalinteeday noqon doontaa laguna xisaabtami doonaa wayna diiwaan gashan tahay 130 wiil hore ugu dhimatay haddana wuxuu horseedayaa in 130 kale ku dhimato horseeday ninkaas cid kasta oo arrimaas qusayso hala arko inta taasaan leeyahay ninkii tii Soomaalida waxay tiraahdaa tiisa daryeelato kala ku dara asagay hoostiisa ka quban tahay dhiigu ka socdaa meesha oo shalay calaameey meelan 10 kilomitir u jirin aqalas Itoobiyana lagu gubay dad Itoobiyana aan gubay waxa ka qabto dhulka Soomaaliya waa wada leedahay shanta calanka shanta gees waa wada leedahay shanta gobolna waa ka wada maqan tahay inta xortaahuna waa xor inta maqanuna waa ka wada maqan tahay Soomaaliya kan lagu ogaay ee Soomaali galbeed ee canfaru soo gashay ee qaybaha ay qabsatay ha ka celiyo haddii wax ku yaalo yoosan dad rayada oo wadan kala ah yoosan u doolin taasaan leeyahay ninkaas taas u dhaafi maayo dadkiisa dalkiisa hadar yeesho kuwa hoos jooga oo digdiga la joogane waxa ka qabto hadduu wax ka qabanayo xuquuqdoodana ha arko ninkaas intaasaan leeyahay waxaan leeyahay kuwa ayaguna isku tilmaamay Hirshabelle ma aqoonsanin horna ma aqoonsanayn haddoo daraad ay meesha tageen ma aqoonsanin xuquuqdeena ku maqan dhiigeena ku maqan dhaqankeena ku maqan ma doonayno mana aqbali doono in habeen madow nin jigjiga ka yimid iyo nin jawar ka soo kacay isu yimaadaan 6 saaco habeennimo warqad lagu madmadoobay feerfeer Itoobiya dhexdeeda lagu madmadoobay ma qaadanayno mana qaadan doono dalkeena dadkeenu iib maaha dalkeena dadkeenu iib ma ahan mana aha doonaan oo aade meesha oo Soomaalnimo sheeganayo aqoon markuu ugu horeysaba umabala xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya horta aqoonsadaan la markuu ugu horeyso marka labaad haddaad magac iyo mudnaan iyo darajo iyo xil aad ku doonayso Soomaalnimo ku doon Itoobiya hooga doon dhul Soomaaliya ina tira meesha aan ka tashanayna ina tira bismillaahir rahmaanir rahiim awwal ilaaba ma hadda iskale isku keenay annagoo caafimaad qabno kana hadalno danaha xawaale oo ku gudban hadba xaaladda meeshay marayso waxaan u malaynayaa 20ka kana hadlaayay arrimaha meeshaan ka soo cusboonaaday oo ah degmada feerfeer oo deegaan caadiye ay ummadu ku noosho dalkii Soomaaliya ah in maamulka kilalka shanaad iyo Hirshabelle oo lagu muransan yahay aansan aqoonsanayn haddaanahay beesha xawaale in ay tageen isla markaasna ay ka galeen heshiis is-afgarad ah in lagu istaajiyo beer ummadu ay tabcanaysa arrintaas markay soo ifbaxday haddaanahay waxgaradka aqoon-yaaniinta iyo culimo diinka beesha xawaale waxaan go'aansanay in aan arrintaa masayrkaas aan ka hadalno markaan isku tagnay dadkii deegaanka ahay ee beeralayda ahay oo 13 tuulo oo meesha degan ah kuna nool beerahaas isla markaasna dawladdii Itoobiya hore ay u geysatay dhibaatooyin badan oo guryahoodii la gubay oo dadkoodii la laayay oo haddaan ka hor loo barakaciyay markaan fariisanay waxa noo soo baxday waxa meesha ka dhacay inayna ahayn wax la qaadan karo waayo waxaana lagu qaadan karin meesha waxa weeye waa dal Soomaaliyeed waay ma ahan dal Itoobiya marka inay tiraaho idaacadaha ay ka hadasho oo ninka la yiraaho ay agaasimaha nabadgelyada oo hoggaanka nabadgelyada oo yiraaho beerta noocaas lama qodan karo wax la qaadan kara maahan beerta Soomaaliya iska leh xuduudkii 15 kiiloomitir oo ka xageeya
mana u dulqaadanayna waana la qodanayaa waana la qodan jiray insha allah waana qodanaynaa intaa markaan ka gudbo kuwa lagu muransayaa Hirshabeelle fadeexa waxa idigu eg ama xumaanu ay garbihiina suran tahay inaad dal Soomaaliyeed aanan dhax tagtaan aad tiraahaan lama qodan karo oo dadkii iska lahaayna hareeraha ay ka degan yihiin ayaan dare u soo hoyatay Soomaaliya waxaan u sheegayaa dawladda federaalka xuduudaha ayada ka mas'uul ah sida dastuurka Soomaaliyeed qorayo inayna ka hadlin xuduudkii gobolka Hiiraan ay ummadda Soomaaliyeed leed oo 15 kiiloomitir calanka Itoobiya oo ka babanayo lana tagi karin dadkii ku dhax noolaa meesha ee deganayna horay loo barakaciyay maantana dib 15 kiiloomitir oo dambe la dhahayo lama qodan karo ayaan daray ku tahay kuwa maamulka sheeganayo ee xamar joog bacda salaan shirkeenan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay maanta arrimihii ayaamahan ka socday feerfeer Soomaaliya inaanu kaga hadalno oo kaga jawaabno wixii meesha ka dhacay awalan gelinka shanaad ee Itoobiya dad waa naga dhaxeeya laakiin dal naga ma dhaxeeyo dad waa naga dhaxeeyo dadkeena Soomaaliyeed Itoobiyana waa degan yahay Soomaaliyana waa degan yahay laakiin dal xuduud aanu leenahay la yiraahdo xuduud beenaad wixii ayaga dhaxdooda inay xaliyaan ilaahayna u saqiraan ugu duceynayna tii annaga dhaxdayada ahna annaga ka mas'uula iyagu mas'uul nooga ma waana ku qaldan yihiin hadday soo baxeen oo hadda meesha 15 kiiloomitir ay gudaha soo galeen anigu waxaan u haystaa meesha 16 kiiloomitir iyo bar inay gudaha ku jiraan marka taas waxaan leeyahay waa xadgudub xuduudna waxa ka hadli kara sideedaba oo mandate u leh oo dastuurku siinaya dawladda federaalka marka waa ku qaldan yihiin ciddii raacday oo meesha la tagtay oo Soomaaliyan mas'uul ka nahay oo annaga maamula dhahaysa iyo ayaguba waa ku qaldan yihiin dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa xuduudada Soomaaliya iyaga ka mas'uula siday u ilaaliyaan beled xaawo iyo doolow iyo dhulkaas ay ugu ilaaliyaan Kenya inay intana u ilaaliyaan ay u soo diraan quburada xuduudaha ku shaqada leh lagu celiyo calankan Itoobiya meesha uu lahay ummaddu waxay isku dhaqdaa dastuurna waxa weeye kii Ilaahay soo dejiyay waxa jira mid dambe la isla samaysto oo la isla ogol yahay oo aan ahayn kii Ilaahay soo dejiyo Qur'aanka Kariimka ah kaas ay Hirshabeelle sheeganayso annagu dastuur wax kuma darsan lama qorin ayaga qortay ayaga isku doortay saas daraadeed annagu wax Hirshabeelle liira ma aqoonsan dhulkeennana taake iska daaya fartaas intii la saaro ma bixin karaan mas'uulna kama waxa ku soo haray dalka Soomaaliya dadka degan kol hadii maamulkii meesha ka jiray aanan aqoonsanayn dadka walaalaha oo Soomaaliya degan oo feerfeer Soomaaliya iyo nawaaxigeeda degan annaga odayaashii dhaqanka u ah waa walaalaheen gogol nabadeedan u fidinaynaa waxay kala qabaan annaga u kala qaadayna waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u sheegaynaa in dadka walaalaha oo wax tabanaya qaasatan ka tabanaya beesha xawaadle annagoo odayaashii dhaqanka inay noo yimaadaan bartow leeyahay iyo beertow leeyahay iyo baraakadiisa asaga lagu dili maayo annagaana lagu dilaya annaga uga qaadayna ciddii ka qabta laakiin yaan cid kale naloo soo wadanayo Itoobiya naloo soo wadane annaga bogcadaas ilaaha nagu wada beeray intaan noolnahana waa joogi doonaa yaanan isku nicine aan isku nimaado dan guuda naga wada dhaxaysay aan taas ka tashano qolooyinkan Hirshabeellena waxaan leeyahay ceeb intaasaa idinku filan ee waxaad yeelaysaan meeshaad isku doorateen taga Hiiraan cid idinka aqoonsan iyo cidad wax u qaban kartaan ma laha kaarkiina waa gubtay fadlan iskaga taga meesha mar labaad waxaan dawladda Soomaaliya ka codsanayaa xuduudaha iyada ka mas'uula inay timaado oo dhibka meeshaas ka taagan ay fiiriso
ninka la yidhaahdo cabdi iley xasuuqii uu ka waday ayaa hadda weli ka taagan meesha annagu ma rabno gelinka shanaad maamulka ka jira inaan ku xadgudubno inuu annaga nagu xadgudbana ma rabno hadday maamul tahay iyo hadday dad shacaba tahayba in kastoo diris nala ah waxaan jecelnahay inaan nabad kula noolaano waxaan rabnaa intaasna loo tixgeliyo mar labaad iyo mar saddexaad codsigayga ugu dheer waa dowladda Soomaaliya inay timaado meesha uu dhibka ka taagan ay aragto qodobka labaad oo dowladda ka codsanaya waxa weeye war annagu Hirshabeelle waa diidnay wax lama dhisan heshiisku ma ahayn dastuur lama qoran beled xaawo iyo gado siday uga ilaalisay Axmed Madoobe waxaana nooga ilaalisano kordhig gabagabadii shirka waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ilaa iyo 7 qodob ka kooban waxaana u dhignaa sida tan waxgaradka beesha xawaadle ee gobolka Hiiraan warmurtiyeed maanta oo Isniin ah 29 Maarso 2021 shirweynaha wada tashiga odayaasha iyo waxgaradka beesha xawaadle oo maalmahani ka socday magaalada Beledweyne muddadii u dhaxaysay 26 ilaa 29 Maarso 2021 shirkaasi oo maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Beledweyne ujeedka shirkaasi ayaa ahay mid lagu gorfaynayay xaaladda ka soo cusboonaatay xadka gobolka Hiiraan oo la leeyahay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana shirkaasi diiradda lagu saaray arrimaha masiiriga ah ee gobolka Hiiraan iyo siyaasadda kaga aadan beesha xawaadle heshiisbeenaadkii dhaxmaray labada maamul oo kala ah maamulka lagu muransan yahay ee Hirshabeelle iyo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya odayaasha iyo waxgaradka beesha xawaadle waxay shirkooda diiradda ay ku saareen ilaalinta badqabka amniga xuduudaha gaar ahaan gobolka Hiiraan oo la leeyahay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayagoo si qoto dheer u dul istaagay arrimaha bini'aadanimada iyo horumarinta gobolka Hiiraan hirgelinta tabcashada beeraha qodobadaas waxay ka soo saareen warmurtiyeedka qodobadani ka soo saareen odayaasha waxgaradka beesha xawaadle waxay go'aan ku gaareen inaan cid wax wada hadal ayna kala geli karin wax ka sokay xuduudka beeneedka Itoobiya iyo Soomaalida waana dhul Soomaaliyeed odayaasha iyo waxgaradka beesha xawaadle waxay uga digayaan in dhulka Soomaaliyeed qayb ka mid ah lagu daro dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya taa oo xadgudub ku ah madax bannaanimada dhulka ummadda Soomaaliyeed odayaasha iyo waxgaradka beesha xawaadle waxay cadeynayaan inaysan aqoonsanayn maamulka lagu muransan yahay wax heshiis ahna uusan la geli karin xuduud Soomaaliyeed waxaana heshiiska geli kara oo kaliya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya taas waxaan aan ahayn waxa dusha saaran doona dhibaatadii ka dhalata heshiis beenaadkii dhaxmaray bulshada heshiis beenaadkii baraha bulshada la soo dhigay waxaana qaadan doona cidii la gashay heshiiska beenta ah oo ay galeen maamulka lagu muransan yahay Hirshabeelle iyo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya afar odayaasha iyo waxgaradka beesha xawaadle waxay ka digayaan in ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya la keeno dhulka Soomaalida dhibaatadii ka dhalantana waxa mas'uuliyadeeda qaadan doona hoggaanka nabadgelyada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya odayaasha iyo waxgaradka beesha xawaadle waxay uga baaqayaan dawladda federaalka Soomaaliya oo mas'uul ka ah ka saaran tahay ilaalinta xuduudaha Soomaaliya in ay ilgooniyo ku eegto gobolka Hiiraan iyo xadka beeneedka ay la leedahay Itoobiya ayadoo aan ognahay inay 15 kiiloomitir wax ka badan uu calanka Itoobiya uu ka taagan yahay gudaha Soomaaliya qaasatan deegaanka Aabaale midaas oo xadgudub ku ah madax bannaanimada qarannimada Soomaaliyeed odayaasha iyo waxgaradka beesha xawaadle waxay uga baaqayaan dhammaan dadka degan xuduudda beeneedka gobolka Hiiraan oo la leeyahay Itoobiya in ay ka shaqeeyaan nabadda wadajirka walaalnimada wada noolaanshaha iyo diris wanaagga isla markaana ay ogaadaan faragelin shisheeye wax hal ah oo waara inayna u keeni karin qodobka 7 odayaasha iyo waxgaradka beesha xawaadle waxay soo dhaweynayaan cid kasta
oo tabasho qabto in ay diyaar u yihiin inay ka xalliyaan tabashadooda isla markaana ay la fadhiistaan odayaasha iyo waxgaradka beesha xawaadle waxay soo jeedinayaan inaan xasilooni daro laga abuurin xaduud beeneedka gobolka Hiiraan uu la wadaago dawladda Itoobiya gaar ahaan agagaarka Feerfeer iyo Abaale waxaan kaloo aan uga digayaan ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo maamulka lagu murasan yahay ee Hirshabelle inaysan dhibaato ka abuurin deegaano nabdoon ugu dambeyntii odayaasha iyo waxgaradka beesha xawaadle waxay ku dhiirigelinayaan beeralayda degan deegaanadaas aan kor ku xusnay in ay tacbadaan beerahooda nabadgelyadooda wadajirka iyo walaalnimadana ay ka shaqeeyaan wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maxamed ibraahim siyaad TV-ga Hiiraan Beledweyne